السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. soo dhawaada asxaabteyda sharafta badan. Maanta miiska waxaan u saaranay qaro iyo canab ay caawinaya insha Allah. Soo dhawaada waxaan sameysan doonaa digaagan saa ujeediin basaan oo maxaa la dhihi jiray faraaga u kala bixin doontid insha Allah. horumar waxaan idin rajeynaa meel joogtiin. Soo dhawaada asxaabteyda sharafta badan. meesha waxaan ku haystaa qudaarta saa ujeediin digaaga waa inta kabsar caleen ay yaalo. meeshaas toona ay taala inta waxaa ii yaala baradho inta waxaa ii yaala basal biyaheeda waxeeda dhan ku dhex jira waa la dhaqa biyaha lagu dhex riday ikhraa jarjartay waxaanoo dhan ikhraa diyaarisay kabsartaana sideeda lagu jarjaraa insha Allah macal toonka qofkii rabana wuu tuman karaa waa la dhaqaa waa la jarjaraa biidnillaahi albaari soo dhawaada asxaabta sharafta badan hore ayaan waa u aragteen deeq waa u aragteen xaliimo waa u aragteen laakiin ayagoo keligood sameynaya laakiin hadda waxaa waaye iqro iyo canab insha Allah ay caawinayo oo wada sameynayna markaan soo dhawaada meeshaas waxaa iigu jiro xawaajiga axlaam waaye kan hadda meesha ii yaalo sidoo kaleeto inta waxaa ugu jira baradho oo ikhraa jarjartay biyaha lagu soo dhex riday meesha basal intana barbarooni intana yahay sibirsaan intana basal ayaan dhehey toon inta kabsar xaggana 2 xabo oo ukun ah asxaabteyda sharafta badan wax yaroo cusbaa ku dareynaa insha Allah digaagan waa aragteenbo inta waxaa soo saaranay saxankii foornada wax lagu gelinayo soo dhaqanay dan warqadii aan ugu maarmeyna saliidda aan saaranayna asxaabteyda sharafta badan soo dhawaada isla socod wanaagsan intan waxaa igu jiro ukuntii kabsartii oo la jarjaray toontii yahay sibirsaantii iyo qudaartii kale hore oo aragnay oo ka mid tahay barbarooniga iyo basashii iyo baradhadii dan waxaan sameynaa asxaabteyda sharafta badan canaba waxay soo qabanaysaa insha Allah ukuntii waxay ku shubtay baaquli and then waxaan ku darsanaynaa hal qaado oo xawaajiga axlaam ah halkii qaadee ku dartay canaba qasuyso soo dhawaada asxaabta sharafta badan asiga dhan inuu isdhexgalaa la rabaa waxaaba qofka markuu gacanta la galo gurigooda markuu tago hadhowda wuu sameysan karaa laakiin wax walba hadda aad sameysid qofka waxaa waaye kalsooni iskuma qabaayo wax kasta ama ka halaawaan isleeyahay hadda waxaa ku darnay toonti waaye toontan waa la soo yareeyay asxaabta sharafta badan qofkii rabo wuu tuman karaa kabsarti waaye wax ku daraayo waa iqro canabna waxay ahayto way qasuusaa waa kana iqra soo qabatay waxay meesha soo saartay digaagii oo soo dhaqanay then qaadadaas ay qabsanee waxay ku shubeen kan gacmeeda nadiif waa gacantii la gale saasa loogu masaajeynaa asiga dhan digaaga waxaa la rabaa inay xawaajigii iyo cusbadii yareed iyo inay lafta ka gashaa la rabaa digaaga insha Allah saasa loogu marnaa asxaabteyda sharafta badan asxaabteyda sharafta badan kulli saana loo soo marinaa qofkii rabo bacda oo wuxuu ku sameyn karaa oo afka hore laisku sharooteyn karaa waxaa sameynaya inaa waxyaabaha yacni oo carafta inta marisid ayada markaa dhaqdid oo bacdaas afkeeda isku xirtid saacad camal markuu ku yaalo ilaahu ma talaajada qaybta oo aan barafka ka dhigayn xataa gasho caraftii wixii dhan lafta markay iska gasho hadda maqaarkii saas dhee waa lasii gelgelin toonta xataa gelgelin kartaa ani 8 bilood ama 9 bilood ka hore waxaa soo geliyay anoo sameynayo laakiin tan waa baraatiko oo ardayda marka soo dhawaada ayagoo baraatikeynaya waaye marka bacdii idin wadee plastic afkaasa bacda hadii laga xiro markii caraftii iyo dhexda iska galaan kadib waa duban kartaa qofkii mustacjal ahna waxaa waaye saan u kala tuurana asxaabteyda sharafta badan iqra sameynayso kulli saasa loo marna haddii kale meel dhanaan meel waxay noqonaysaa wax oo waxaa adeegsanaynaa oo baharaad caadi ah xawaajigan asaab ugu maarmay wax walba oo hal qaada ku darsan wax walba isku jiro waaye iyo
iyo cusbo yaraan ku darsanay iyo ukuntaasiite. Ukunta haddaa qaybta huruudda keligeed waa ka dhigan kartaa asxaabteeda sharafta badan, haddii kale ayada dhanaa isku qasi kartaa. saasaa u marsanee ay si dhana la wada marinooya meeshii qoorta ahayd waaye asxaabteeda sharafta badan. saasaa loo wada marinaa. kadib bacdeeda saas ku saaranta geesaha waxaa laga dhigaa maxaa la dhihi jiray kii baradhadana caadi oo warwareega caadiya loo soo jaray asxaabteeda sharafta badan. saasaa u dhadhiganay. ukunta qaybta huruudda bis waa isticmaali kartaa asxaabteeda sharafta badan. ukun la-aan xataa waa ka dhigan kartaa. soo dhawaada meel walbo joogtay horumar waxaan idin rajeynaa gabdhaha lii dhiirigeliyo waana ku mahadsantihiin insha allah ana waa soo gelin doona xataa ayagoo dareyskii wataan oo shaqadii haayaan insha allah waa soo gelin doonaa wax walba step by step waaye. soo dhawaada sida wanaagsan oo ila socotiin kommentiina quruxda badan iyo ducadiina dhiirigelintiina waa ku mahadsantihiin. please and please haddaa nagu cusubtaa subscribe noo saar like dhacdhac nagu sii dhiirigelin ayay noo tahay dardargelin ayay noo tahay. waana ku mahadsantihiin sida wanaagsan oo ila socotiin ilaaha idin xafido meel walbo joogtiin. barbaroonigii iyo basashii yaa la saaraa asxaabteeda sharafta badan kulli markii laisku dheelitir waa kanahee akhraa weli hooshii wado. idan hadda asxaabteeda sharafta badan waxaa sameynayna foornada gelinayna. foornada awal waa sii shidan jiray marka wax sameynaayo laakiin hadda ma shidan. waxaa rabaa in la 40 markaa saas u shida la gelina. burshara soo qaatay anigana waxaan is dhahaa ukuntaan yarta inta la daadi lahaa saas uma maray ayadii xawaajiga. idan sidaasaa foornada lagu gelinaa. marka foornada hadda markaa gelinaya la shiday waxaan rabaa inuu minimum u karo muddo 40 daqiiqo ku jiraa because of hore biyo looguma hafinin waxay dhan in hadda isku karaan oo lafta iska galaan oo dhicaankeeda iyo wixii dhan waxaa la rabaa dhag isku noqdaan. laakiin haddii aad foornada sii shidatid oo aad gelisid inay iyo soo bislaata laga yaabaa gudihiina markaa goosatid dhigdhig ku aragtid saasaa diidanahay. that's why marka aan 40 daqiiqo aan ugu sugeynaa inay foornada ku jirto meeshii aad 10 daqiiqo iyo 15 daqiiqo ama 20 daqiiqo loogu soo bixin jiray. saacad xataa kuma xirayna caadi yani macnaha saacad waxaa jirto ma hoo lagu xiro hadda kuma xiri rabi caadi 40 daqiiqo qatra ikhraa gelisay. idan waa kana asxaabteeda sharafta badan 40 daqiiqo kadib waa kana foornooyinku way kala yihiin 20 daqiiqo mid hadaa wax u rabtid 20 geynay hadhoodi hadaa ka danaysata xataa 20 hadii la gaaro ayada is xireyso. marka 40 daqiiqo caadi aan u qabanay waa kana ugu dambeyn saan inoogu soo baxday asxaabteeda sharafta badan. haddana shaqadii wadan gabdhaha saxanka la saaray geesaha sida loogu qurxinaa marka wixii oo qudaartii dubneed haddana geesaha la saaraa. soo dhawaada asxaabteeda sharafta badan. waa kana kalarkaas quruxda badan inoogu soo baxday saana geesaha loo soo saaraa insha allah. inta lagama sheekeyn karaa ku dhahay saas haddaa u qabatid lugta ku dhahay way kusoo raacee carafteeda iyo sidee tahay ma aragtay qofkii jooga bisa ka sheekeyn kara asxaabteeda sharafta badan. waana ku mahadsantihiin mar walba waa mahadsantihiin inaa idan dhow kama daalaya asxaabteeda sharafta badan. hayla ii dhiirigeliya gabdhahana insha allah. hadda waxaa sameynaynaa asxaabteeda sharafta badan iqraa qabanaysaa ku dhahay way kala goynaysaa yacni laftii iyo wixii dhanaa kala baxaaya ku dhahay saas mujida farta saas markii la bahashu way kulushahay hadda le foornada laga soo bixiyay qiiqeeda buxooye laakiin saas markii la dhaho mujida saasay u gogoysaa haasay isku dadeynaya iyada dhan kuleelkeed tahayna ilaah ogaa ku dhahay waa ka dareemaysiina umaleynaa qiiqeeda mujida saasay isku raacraacay saasaa la rabaa hilib waxaan ku dhahay qof ilka la-aan iyo qof ilka qaba cuni karo saas inay isku dadeyso mujida yaa saxa wahana horumar wacan idin rajeynaa asxaabteeda sharafta badan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.